الله وبركاته ومعلن عبد الرحمن oo maantani baraya qaabka loo sameeyo website blogspot ah inta badan waad aragtaan webyo blogspot ah sida webkan uu leeyahay oo ah samirtech24.blogspot.com inta badan aan soo galiyo sheekooyin xikmado iyo waxyaabo kale oo la halmaada hadaba aan u dhaqaaqno qaabkan u sameyn lahaa marka u horeeya aad sameynaysid waxaad u baahan tahay in aad leedahay Gmail account aniga hadda Gmail account oo soo sameystay daawasho wacan la soco meesha URL-ka waxa ku qoranaysaa blogger.com kadib enter ayaa dhahaysaa waa sugaysaa xoogaa khadku waa iska jam sometimes waa inaad u dulqaadataa aan sugaynaa xoogaa u socdaa waxaad ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay create your blog oo blogii baan abuuraynaa kadib emailkaaga ayaa halkan gelinaysaa next ayaa dhahaysaa halkan waxaad gelinaysaa passwordkaaga sign in ayaad ku dhufanaysaa waa sugaysaa xoogaa khadka adag aad baan ugu xumahay waana naga raaligelinayaa daawadayaasheeda sharafta leh marka laba choice buu ku siinayaa inaad samaysato Google Plus iyo Blogger website ah oo blogspot ah buu ka wadaa haddii aad Google Plus abuurato waxaad soo gelinaysaa Google Plus ka sawiradaada marka hadhow matalan kale marka aad Google Plus ka magac ku qorto aniga Cabdiraxmaan Maxamuud baan ku qortay haddii aan Google-ka caadiga Cabdiraxmaan Maxamuud geliyo waa laga arkayaa sawirada aan soo dhigay Google Plus ka marka anagu hadda ujeedadeena waxa weeye inaan abuurno website blogspot ah marka waxaan ku dhufanaynaa create limited blogger profile halkan wuxuu ku leeyahay magac ku qoro display name magac ka soo muuqanaya blogspot-yada aad samaysanaysid meesha laga manage gareeyo ana hadda waxaan ka dhiganayaa Abdurrahman's blogger Abdurrahman bloggers create continue to blogger ba ku dhufanaysaa waa kan haddaan abuuraynaa new blog ayaa ku dhufanaysaa halkan waxaa ku qoranaysaa titleka ciwaankaaga kasoo muuqanaya ani hadda webkayga aan tijaabiyo sug tusaale ahaan titleka wuxuu noqonayaa titlku waa intaa all your want is here inta dusha sare ka soo muuqanaysa way titlku halkan waxaan ka dhiganaynaa anoo waxaan abuuraynaa website tijaabo waan ka dhiganaynaa tijaabo blogspot halkan waxaad ku qoranaysaa blogspot-kaaga ani hadkayga waxa weeye samirtech24.blogspot.com hadana waxaan sameynaynaa samirtech21.blogspot.com halkaas aad ku dhufanaysaa isaga ku raacanaysa automatic halkan waxaad dooranaysaa template-ka ama qaabka website-kaaga u noqonaya hadda waa kan website-kaaga design-kiisu waa sidaas qaabkaa weeye ad aragtaan ano marka mid uma iska dooranaynaa kanan dooranaya dynamic views create a blog baa dhahaysaa waa uu samaysmay website-kii blogspot-ka ahaa aan tijaabina haddaba aan aragno webka aan samaynay view blog baa dhahaysaa bloggaaga arag waa kaa tijaabo blogspot
dushaa sarena waxaa ku aragtaa samir tech 21.blogspot.com.